السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada aan ku saaxibnay habada aad baad u mahadsantihiin. haddii aadan naga mid ahayn maantaba nagu soo biir waad mahadsan tahay. maanta waxaan idin wadaa taxano cusub oo aad u qurux badan. taxanahan oo la magac baxay naftu naf bay rabtaa, naftuna naf kale bay doonaysaa. taxanahan wuxuu ku bilaabanayaa sida tanaad aragtaan gabadhan iyo wiilkan iyo gabadha kala aragtaan waxay ka soo jeedaan South Korea. gabadha magaceedu waxa la yiraahdaa Chinyachu, wiilkan magaciisu waxa la yiraahdaa Janaja. gabadha kale oo saddexaad ayadana magaceedu waxa la yiraahdaa Chinya. runtii waa xiriir ka dhaxeeyay gabadha la yiraahdo China iyo wiilkan aad aragtaan. balse naftu haddii ay naf kale ay rabto, naftana naf kale ay rabto, aad bay u caqabad badan tahay. runtii gabadhan iyo wiilkan xiriir ayaa ka dhaxeeyay, waxaana soo wada socdeen muddo 6 sano ah. heer jaamacad, heer iskuul, intaba waa isla soo dhameeyeen. labadoodana waxay ka kala dhashteen 2 family oo qani ah. balse nasiib wanaag maxaa dhici doona? runtii gabadhan wiilkan markeeda hore si xad dhaaf ayay u jeclayd, balse hore waxaa loo yiri nafsi lama galo, god khiyaanana ha qodin, haddii aad qodaysidna ha dheereenin, ku dhici doontidaa lama ogey. maxaa soo socda? gabadhan iyo wiilkan runtii xiriir badan ayaa ka dhaxeeyay muddo dheer, weliba heer jaamacadeed, heer iskuul, intaba waa isla soo qaateen waqti qurux badan. 2 qofood waxay ahaayeen isku kalsoon, qofka kalena uu aaminsanaa. jacaylkooda wuxuu maraayay meel aad iyo aad u qurux badan, balse hal mar ayaa mashaqo ku habsatay. wiilkan gabadhii wuxuu ku sameeyey maalin maalmaha ka mid ah uu soo kaxeeyey, wuxuuna keenay meel cafeteria lagu cabiyo. cafeteria wiilkan markuu keenayay jeebkiisa lacag yar ayaa ku jirtay oo loo yaqaan lacagtaas pound, ay waxay isticmaalaan pound. bis cafeteria tagan lacag yar waday, lacagtii iyo waxyaabo isticmaaleen isku mid ma aysan noqoninba. kadib waxa dhacday wiil kale inuu meesha yimaado. markaas kadibna gabadhii iyo wiilkii lacagtii lagu lahaa qorastada ahayd inuu wiilkii ka bixiyo. wiilkina runtii wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan, balse markii uu lacagtii ka bixiyey maxaa dhici doono? maxaase soo socdo? waa waree, runtii sheekadu aad bay u dheeraanaysaa, wayna isku cakeynmaysaa. daawadayaal, sheekadeena quruxda badan beertuwankeeda halkan ayuu noogu egyahay. beertuwankeedana waan soo sameynayaa, balse waxaan ka codsanayaa haddii aadan follow noo ahayn ama subscribe, booqo TikTok-geena iyo YouTube-keena intaba. maantaba nagu soo biir si aad la jaan qaado dunida horumartay.